ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo ku sugan magaalada Kismaayo ayaa boqolaal shacab ah kula hadlay magaaladaasi suula wadaago hanaanka u shaqeysa dowladda federaalka wada shaqeynta u dhaxaysa hay'adaha dastuuriga ee dalka siyaasadda ay ku shaqeyso xukuumadda iyo inuu dhageysto talooyinka wanaagsan ee ku jira shacabka magaalada Kismaayo isku imaatinkan oo ka qabsoomay howlka shirarka ee Jubbaland ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe wasiir ka tirsan dowladda dhexe ee Jubbaland xildhibaano isugu jira baarlamaanka Soomaaliya iyo Jubbaland boqolaal shacab ah oo isaga kala yimid xaafadaha magaalada Kismaayo qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay isku imaatinka ayaa soo dhaweeyay waxqabadka xukuumadda iyo talaabada uu ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ku go'aansaday in shirka golaha wasiirada lagu qabto magaalada Kismaayo ra-iisul wasaaraha waxaan leeyahay soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow ummad Soomaaliyeed ku soo dhawow ragga ku ag fadhiya madaxweynuhu hogaaminaya tabceen oo annaga aan ka midnahay ku soo dhawow wax run ah ku soo dhawow marti matidi dalka ku soo dhawow ra-iisul wasaare waan ku soo dhaweynaynaa si fiican baan ku soo dhaweynaynaa nabad ku soo dhawow khayr ku soo dhawow golaha wasiirada sidoo kale wasiirka maaliyadda ee federaalka habeen dhaweyto codku ku hadlayay aad baan ku jeclaanay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa xusay Jubbaland ay astaan u tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed isagoo dowladda federaalka Soomaaliya ka codsaday inay kala shaqeyso sidii deegaanada Jubbaland looga xoreyn lahaa cadawga argagixisada al-shabaab wadana ra-iisul wasaare Jubbaland sanadii ku shaqo saddex gobol ka kooban hal gobol iyo degmooyin baa weli waxay ku jiraan gacanta madaxayaasha oo ay gaadhay xataa inaynu gaarsiin kari weyno abaaltii dhacday wixii la gaarsiinayay deegaanada sidii loo siin lahaa xataa inagu adkaatay waxaan rabnaa xukuumaddu iyadaa matalaysa amniga waddanka guud ahaan annagu waxaan nahay looxqoyan meahay kuwa alifgaabkaan hadda ku jira mas-uuliyaddeeni saaran baa waxay tahay inaad cid kasta oo khusayso ama international community ha noqoto ama ciidamada amisom ama kulligood inaad idinku wax badan riixdaan si hawsha Soomaaliya isbedel loogu sameeyo canaasirta yaryar ee manaxayaasha ah waddanka looga qabo waa mas-uuliyad ee saaran ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo khudbad dheer u jeediyay boqolaalkii shacabka ah ee ka qayb gala kulanka ayaa tilmaamay inuusan jirin khilaaf u dhaxeeya hay'adaha dowladda isla markaana uu wada shaqeyn wanaagsan ka dhaxeeyo baarlamaanka iyo xukuumadda ka warrama caruurta Soomaaliyeed oo iskuulka lahayn ka warrama wadamadii aan la tartami jirnay oo 27 sano jaamiciyiin soo saarayay annaguna aan dib u dhacnay meeqa ayaan rabnaa inaan fiirsano inaan dunida ka dambayno meeqa ayaan rabnaa inaan dhagaheenu maqnaan qabyaaladii iyo kala qoqobnaantii waa muhiim reer Jubbaland haddii aad Kismaayo nabad ka dhigteen inaad intaad istaagtaan Soomaaliya inta kale sugan annagu hal hadaf bis baan ka leenahay madaxtinimada ummadda Soomaaliya hadafka keliya oo aan ka leenahay waa in la soo celiyo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliya inaan dagaalno waan ku soo daalnay qabyaalada waan ku soo daalnay in aeroboor walba oo adduunyada aan tagno haddii aan Soomaali nahay nala liido waan ku soo daalnay in dal walba dunida ku noolaano aan la sii joogi karin oo dalkaada u soo helo taariikhdeena qoraysa meel walbaad ku arkaysaa dowladnimadeena hadda sheegaysa in wax la dhiso aad ayay u dhib badan tahay in la dumiyo laakiin waa sahlan tahay haddii marka wax noo dhisan yihiin wax walba oo noo dhisan haddii aan Soomaali nahay waa inaan ku faradeegnaa inta noo dhisan annagoo haysana ayaa la rabaa inaan sii dhisno sidaas daraadeed waxaad tihiin hormuudkii nabadda ra-iisul wasaare Khayre ayaa hoosta ka xariiqay in xukuumadda Soomaaliya ay u adeegto guud ahaan shacabka Soomaaliyeed si taal looga dhabeeyana shirarka iyo go'aamada dalka lagu gaari doono magaalooyinka dalka annagana madax ma ahaan karno haddaadan idinku noo helin dal ma dhisi karno haddaadan nala dhisin waxaan mar labaad idin sheegayaa dowladda federaalka idinkaa iska
idinkay idin adeegtaa idinkay idin matashaa ma aha inaad ka fikirtaan ama ka walwashaan inay idinku xadgudbayso ra-iisul wasaare inaan xamar ka ahaado ra-iisul wasaare iga dhigi mayso haddii shacabka jooga Kismaayo oo ah dad Soomaaliyeed aan ra-iisul wasaare u ahayn xaafada xamar keligooda qofna ra-iisul wasaare uma noqon karo ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa shacabka reer Kismaayo iyo maamulkooda uga mahad celiyay sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka ayuu xusay in si wadajir ah ay uga wada shaqeynayaan xoojinta midnimada ummadda Soomaaliyeed dowladda federaalka Soomaaliya ay u adeegto dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo aysan ahayn mid ku kooban magaalo ama gobol. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Kismaayo.